Bahrain sida rasmiga ahna la yiraahdo boqortooyada Bahrain waa dal carbeed oo jasiirad ah isla markaana dhaca gacanka Khaliijka ama gacanka Persia waxaana dhanka bari ka xigta jasiirad lamoodka carbeed waxaana Bahrain iyo Sacuudiga isku xirta buunda badda dusheeda ah oo lagu magacaabo buundada Boqor Fahad wuxuuna dhererkeedu gaaraa 25 kiiloomitir halka balaceeduna yahay 23.2 mitir waxayna ka soo bilaabataa magaalada Al-Khubar ayadoona ku dhamaata magaalada caasimadda u ah Bahrain ee Manama waxaa la furay sanadkii 1986 waana mid dalka Bahrain qiimo weyn ugu fadhida maadaama ay qayb ka tahay dhaqaalaha dalka waxayna sheegtay mu'assasada guud ee buundadan sanadaha ay furan tahay buundadan inay adeegsadeen dadka badan 382 milyan oo musaafir bedka uu ku fadhiyo dalkan waa wax ka badan 700 kiiloomitir isku wareega taasoo ka dhigtay dalka saddexaad ee ugu dhulka yar qaaradda Aasiya iyo dalka 187 ee ugu dhulka weyn caalamka marka la eego gobolada Soomaaliyana wuxuu ka dhul weyn yahay oo kaliya gobolka ugu yar ee Banaadir dadka dalkan waxaa tiradooda lagu sheegaa in ka badan 1 milyan waxayna intooda badan ku nool yihiin Manama oo ah magaalada ugu weyn dalka caasimadana ah iyo Rifaaca oo ah magaalada labaad ee ugu weyn iyo Maxraq oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalkan isla markaana ahayd caasimadda ilaa 1932 guud ahaan jasiiradaha Bahrain ayaana gaaraya 84 jasiiradood 33 jasiiradood ayaa dabiici ah halka 51 jasiiradoodna la sameeyay dalkan wuxuu ka xoroobay gumeystihii Ingiriiska sanadka marka uu ahaa 1971 sidoo kale waxaa isla sanadkaasi Ingiriiska ka xorowday Qatar midda cajiibka ah ayaana sii ah in calamada Qatar iyo Bahrain aad isku shabahaan isla markaana ku kala duwan yihiin oo kaliya midabka iyo tirada madaxyada saddexagalka ah qoyska xukuumadda dalkan waxaa lagu magacaabaa Al Khalifa waxayna asal ahaan yihiin qabiilka cutub oo ka soo hijrooday mandiqada Hadar la yiraahdo ee dhacda dalka Sacuudiga boqorka dalkan waxaa lagu magacaabaa Hamad bin Isa Al Khalifa wuxuuna noqday amiirka Bahrain 1999 maadaama uu ahaa wiilka ugu weyn caruurta uu dhalay Isa bin Salman Al Khalifa oo ahaa amiirka Bahrain 1961 ilaa 1999 laakiin sanadkii 2002 ayaa la bedelay magaca dalka ayadoona loo bedelay boqortooyada Bahrain markaas ayuuna boqor noqday Hamad bin Isa qoyskan ka taliya dalkana waa Sunniyiin laakiin shacabku kala bar waa Shiico xogaha qaar ayaana sheegaya in Shiicadu dadka dalkan ka yihiin boqolkiiba 62 laakiin tirokoob la soo saaray 2001 ayaa lagu sheegay in 81.2 boqolkiiba yihiin dad haysta diinta Islaamka halka boqolkiiba 5 lagu sheegay Kristaan waxaana boqolkiiba 14 soo hartay lagu tilmaamay kuwa haysta diimo kala duwan sida diimaha Hinduuga iyo Yahuudda dalkan wuxuu ku tiirsanaa waqtiyadii hore kalluumaysiga iyo ka ganacsiga luulka waxayna Bahrain bilowday raadinta luulka iyo ka ganacsigiisa 200 sano ka hor taariikhda miilaadiga dhaqaalaha dalkan waa mid furan lacagta diinaarka ee Bahrain ayaana ah midda labaad ee ugu qiimaha sareysa halka lacagta Kuwait tahay midda ugu sareysa 1932 ayay ahayd markii ugu horeysay ee ceel nafta laga daaqaday Khaliijka wuxuuna ceelkaasi ku yaalaa Bahrain gaar ahaan buurta loo yaqaan Qiiqa ama Jabal Duqaan hoostiisa Jabal Duqaan ayaana ah buurta ugu dheer ee dalkan waxaa sidoo kale dalkan laga helaa mid ka mid ah masaajidda ugu weyn caalamka kaasoo lagu magacaabo Masjidul Faatix oo la dhisay 1988 wuxuuna balciisu gaaraa 6500 mitir goobaha loo dalxiiso ee dalkana waxaa ka mid ah qalcadda Bahrain ama qalcadda Boortaqiiska kana mid ah goobaha taariikhiga oo ay aqoonsan tahay UNESCO ma kula tahay daawade dal kulul uu roobku ku yar yahay in laga helayo geed cimrigiisu gaarayo 400 sano haddaba Bahrain ayaa laga helaa waxaana lagu magacaabaa shajaratul hayaat ama geedka nolosha wuxuuna geedkan kaligiisa ku yaalaa saxaraha Asaqir geedkan cimrigiisu gaarayo 400 sanana waa mid isku bedelay goob dalxiis oo dhaqaale soo gelisa dalka Bahrain